السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسدح لباتنك بش اللي حاسنتك لبدا كل شهر لباتنك 10 كان و10 كله وكدو 10 hore laakiin wuxuu markaasi la socdaa 10kii markaas aan qaadanay oo aan kaga hadlaynay dhakhtarka iyo qofka bukaanka ahaa dalmeedico waa dhakhtarka marka dhakhtarka tagto amaba dhakhtarka iyo meelaha uu ku shaqeeyay iyo waxyaabaha marka laga yaabo inaad la kulanto ayaan xogaa ka soo qaadanay inba maalinba kisan soo qaadan doona studio medico waa xafiiska dhakhtarka studio waa marka xafiis ugu jirta official ay la macno tahay laakiin inta badan marka dhakhtar amaba abukaata qareenka laga hadlayo waxaa la isticmaalaa ereyga studio ayaa la isticmaalaa terminology ama linguage medico waa dhakhtarka turashe waa xabadka dabcan mararka qaar marka tagto dhakhtarka waxa laga yaabaa xabadka inuu ku xanuunayo marka waa lagu weydiinaa marka ereygaasi turashe waa xabadkii infermiere waa bukaan dhowre marka ama bukaan eegto ama bukaan eege infermiere marka hadda halkan waa markaasi lab iyo dhadig ayaa loo kala qaadaa marka infermiere marka waxa waaye waa bukaan eege paciente waa bukaankii qofkii xanuunsanaa paciente waa bukaankii letino waa sariirta yar oo qofka marka dhakhtarka uu controlayo oo marka visitor inuu ku sameeyo uu rabo marka la yiraahdo halka ku sadeexso ayaa letino medicinali waa wadarta magaca guud oo daawada ayaa waxa la isku dhahaa medicinali kadib daawada marka oo adiga marka lagu soo qoray magaca gooni yeelan karta laakiin magaca guud medicinali ayaa loo isticmaalaa mar labaad ku celinayaa waxaan filayaa inaad ka faa'iideysateen dalmeedico waa dhakhtarka studio medico xafiiska dhakhtarka medico waa dhakhtarkii turashe waa xabadka infermiere waa bukaan eege paciente waa bukaankii letino waa sariirta yar medicinali magaca guud ee daawada ayaa waxa la yiraahdaa medicinali inta aan ku kulmi doono 10 kaamil lamid ah anagoo wada jirna waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo kulantay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ciao ciao